برنامج كين عاوة وحمرتين وقع هل كان قدوميها قبل كبنادر لما كان عندكم مقالة مقدشو حسن محمد حسين مقاب قدومي كحيقين قبل كبنادر محمد أحمد ديرية أقاسمها سياسة علي حسن تاكو ذلك النقطة وحالك أنه لجوا سفاردي وخيرد سفاردة فاطمة عبد الله إنسانية إلى تليها حسن عبدي موسى ميو حسين عبدي موسى ميو أقاسمها قول كبنادر انجنير محمد حسن نور كمان مركز شرفك وضياشة هويوينك وحمر رباط اللين هاي هبون أكسن وحان هذا هو ما أطلقه إن دفت السوق من قابل برنامج كان هويوينك دلين يرد يوضياشة قارهان وحان ما أطلقه ولا شيء وبرنامج كان حالين على السوق وبرنامج كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي وعن فرحة قاد نوعا هاي جالية بجنيفة شرف نوعا إن أن تسوي جنرال حسن محمد حسين مونغاب ودوميها قولت حياتي أنا قد مغالدة مقدشو ولا هذا الله واجعلنا لكن ما أودك إلا أن كنت لك ورجينا إلى سومالي ميرون سوكين اسكو نيد نقدان اسكو عف نقدان اسكو موقف نقدان مدني ما كودا شقين حقيقي قفك هدو سو غوريسا ديسان قفنا وما ديسايو ودنكينا انغو مسوا قفك لو سغاي مالا annaga inaan wadankeena dhisano annaga inaan wadankeena wax u qabano dadkan kale ee noo yimaado ee waxna taro waa wax tar un laakiin maskaxdii aqligii xoogii waa un Soomaali waxaan wax ka sugnaana waa Soomaali wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intii igala qayb qaadatayna waa mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijkeena mid ka mid ah gabayada maxamed xakaami oo waqti badan arag maadaama aan iska nahay dad qurba jooga waqti badan waxaan rabaa tixyar inaan inta ka sheekaytiriyo anoo la hadlayo dadkayga dhaman ee waxba aan garan ee mar walba qabyaaladii qurubta u socda danqashada jirkaygiyo waxaan damacsanay tahaan ka rogo wartoodii naftayda ila durugto waa danqayaye dardaarankii duqoydeenna noqotay duudkay iska toogta dadaa soo kacaysan laha way danqaanayaane war darbiyan dabayshacayn baa dugsi moodisaane wardulkiinaan sideen isku buutuma watan goonayaye wardaqantuba dabkii lagu gubtaa way ka duurugtaye wardadkiinan qabiilku dardamiyo doc walbaaba daasan wardadkiinan dinta jecelo xaranta diidi kari waayey wardadkiinan gacanku dhigluugayahay darajada saare wardalkeenna soo dhoobay baan dabyarshidahayne wardahabkiiyo dollarkaan u dirnaa dalkuyuu dagine السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهرين دنياها قبلك أنا دوغا مقالة مقدشو سفيرك دالك قرنك أوفر إلى ودك سويسرلاند agaasimayaasha dadweynaha rag iyo dumar isugu jira xafladan caawa soo qabanqaabiyey oo xafladan ka soo qayb galay xaliimo oo iyadana barnaamijkan qabanqaabadiisa si guud u lahayd dhammaantiin waan salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib sida saxda ah borotokoolka duqa magaalada hadduu fadhiyo waxaa la yidhi hal libaax arkeeda ma gudlato annaga sidaan u kala sarreynaa isku ixtiraamnaa aniga waxaan rabaa inaan marka koowaad u mahad celiyo waddankan Switzerland Soomaalida degan magaalooyinka kala duwan oo caawa aan joogno Geneva sidii wanaagsaneed oo qiimaha badneed oo ay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa waxaana leeyahay Soomaalida iyo midnimadeeda iyo isku xirnaanteedu waa wax muhiim ah waxa meeshan laga tirinayay oo ama maaragtay gabayga lagu matalayay ama heesaha lagu matalayay intaba waxaan rajaynayaa ilaahay inuu naga dhigo kuwa qulubteena u galo waxba tari mayda haddaan inta wax isku sheegna kaliya waxaan isku sheegnaana ay maaragtay waxba tari waayaan marka mar raba hadalka inaan kusii dheeraado waa mahadsantihiin sida wanaagsan oo xafladda uga soo qayb gasheen waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo duqa magaalada gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سفيرة مركز دل كان الجوجا مدحونين من تشاموك مركان هدي لقى رهيبين مقالة نقول السود دويها أي سداس إذا نقول السود دوي كرت على عشان مقالة أي صومال متليس لكن هذا المركز سفيرة اللي يراهدو بروتوكول كيدا نمبر كودا ما يسكله يدا نمبر كله سداس ترتر سفيرة دا United Nations ka u fadhida Soomaaliya marwo Faaduma Insaani iyo dhammaan mas'uuliyiinta halkan fadhida oo soo jirta qaybaha kala duwan ee bulshada jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan waddankan Switzerland gaar ahaan magaalada Geneva siyaasiyiin culamaa u diin dhaqan iyo ururada haweenka dhalinyarada aqoonyahanka iyo fanaaniinta iyo baada saxaafadda مدن يا المرويين وحمدك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب وحمدك كام هاد علنا يا سيدة وناكسن زنتي نوغو سودو ويسين دال كانوا سويسرلاند قاران مقالدان جنيفا وحانا آدو فرحسن إنا عندك لقى يبغى هذا النو ونذكر لكم أنه مضاش عن شرفت بدن qiimaha iyo qaayaha badan oo sida heerka sare loo soo agaasimay waxayna runtiina tusaysaa sida Soomaalida ku dhaqan waddankan Switzerland ay had iyo jeerba u garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya heer gobol iyo heer qaran isla markaana ay u dhiirigelinayaan mas'uuliyiinta ka shaqeysa dalka oo sistemka dawliga runtii xilligan hogaanka dalka kamid ah heer gobol iyo heer qaran markaan aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa si guud ahaan si gaar ahaan in xafladan cidii agaasimtay oo sida la sheegayba ay u horeyso walaashan Xaliimo Culusow iyo dhammaan ay khayrta ka soo qayb gashay waxaa sharaf noo ah si kale inay xafladan caawa ay yani qayb ka tahay nala joogto safiiradda waddankan u fadhida dalka Soomaaliya sidoo kalena ah ergeyga gaarka ah Soomaaliya u fadhiyo United Nations markaan marka waxaan rabaa inaan idin sheego ulajeedka aniga iyo wafdiga aan hogaaminayno aan ku joogno waddankan Switzerland khamiistii ayaan halkan
habeenbarkii soo gaarnay kadib markaan casuumaad rasmi ah aan ka helnay maayarka magaalada baden ninka la yidhaahdo Gary Muller oo runtii nagu casuumay inaan soo booqano magaaladiisa xiriir runtii saaxiibnimo iyo iskaashi iyo wada shaqayn oo dhaxmaro baden iyo muqdisho sidaas aan halkan ku nimid aniga wafdi aan hogaaminayo afar ninkaas odaga ah maayarka magaalada baden waxa uu kaga duwan yahay maayarada kale nagu casuumay wadamadooda isagu waa maayar soo booqday muqdisho oo hadda ka hor anaga aan ku casuumnay noo yimid magaalada soo arkay habeena soo seexday xafiiskeena aan kula kulanay warbixin dhammaystiranna aan ka siinay muqdisho iyo marxaladda ay hadda ku sugan tahay iyo baahida ka jirto iyo horumarka ay sameynayso isla markaana yacni sanad kadib asaguna oo niri bal noo imaada si aan mar labaad halkeeda uga sii wadno yacni wadahadalkii noo socday si kama dambaysi loo gaaro iskaashi iyo mataaneyn dhexmarta gobolka ay magaaladaas ka tirsan tahay iyo guud ahaan aan uga faa'iidaysano khibradda ay u leeyihiin yacni adeegyada ay bixiso dowladda hoose ee waddan kasta ujeedka safarkeen halkaas uu ahaa markaan runtii fursad ay noota markaan inaan kaga faa'iidaysano marka barnaamij oo musaaxib la ah socdaalkeenna inaan la kulano yacni jaaliyadaheena ku dhaqan magaalooyinka waddankan dhowr magaalo oo beerna ugu dambeysaan xalay kula soo kulanay jaaliyadda Soomaaliyeed caawana waa Geneva waxaan u maleynayaa caawana waa khatankiyo habeen dambe insha Allah taala safaraan dalkii u siinaa marka insha Allah khataamo miskun waaye si fiican ayaa xafladan loo soo agaasimay inay Geneva noogu soo dhamaatana aadan u faraxsano warbixin guud markaan waddankeeda ka siiyo adinkuna kulle waxdu kuma seegano maxaa yeelay waxaan arkay walaalkay Xasan Usmaan oo ah ragga aadka u agaasimay inaan halkaan nimaadno anuu hortiina ugu mahad celinayo Xasan Usmaan iyo tiimkiisa iyo maxaan ku leeyahay Bashiir Goobdoon iyo ninka odaga Bashiir kale iyo yacni ragga dalmar iyo khiyaar badan oo safarkeena agaasimaysay markaan baabuurka saaranaaba mobilkiisa noo dhiibaya waxa dhacmar ka dhacay oo waliba muuqaal ah tusaa maxaa goormaad ogaatay adiga mobilkay uu soo dhaceen waxa hargeysa ka dhaco tusaa war goormaad ogaatay mobilkay uu soo dhaceen markaan intaan anaga ogaaninba baabuurka intuu wado mobilka saan oo ku tusaa marka taa waxaan ka fahmay wax badan idin kuma seekano marka laakiin mala waxaad naga rabtaan wax dheeri ah oo wax media laga sheegay ka dheeri oo faahfaahin aan siinaa naga rabtaan yani wax badan idin kuma seekano laakiin haddana inaan bal waxaad ogta ma kuu sheegaa iyo guud ahaan dalkiini bacdama aan ka nimid mas-uuliyiinna ay naga saaran tahay gaaraan caasimadii inaan dadkeenu u waranno waa waajibaadkana saaran mid kamid a markaan waana ku faraxsanaynaa waqtigiina qaaliga ah waxaa nooga soo qaybteen si aad warbixinta nooga dhegeysataan guud ahaan waddankeena waxaa la dhihi karaa xilligan maraaxil fara badan oo soo maray rubuc qarnigii lasoo dhaafay hadda xilligaa wuxuu marayaa marxaladtaa ka duwan marxalad yacni burbur iyo dagaallo ka duwan oo yacni dalka majoritigiisa oo markaan dib u dhis iyo inay umuurtii sideedii kusoo noqoto u socdaa markaan dawlad rasmi ah aan ku meel gaar ahaynin oo dalka gudihiisa lagu doortay ayaana dalka ka taliso markaan aniga yacni cadowgii argagixisadii dagaallo fara badanaa la Soomaaliyeed ogtihiin dagaalihii qabiilkii waa laga tegey kuwa siyaasadeed waa la tegey dagaallo hadda uu shaati diimeed loo geliyey ayaa markii ugu dambeysay socday ayagana waad la socotaan biryahan goobihii ugu dambeeyey farahooda laga sii bixinayo gobollada dalka intooda badan oo caasimadda ka mid ahna mar hore ayaaba laga xoreeyey ama maynan u suuragelinba inay gaaraan meelihii ay sida badan yacni gobollada koonfurta iyo bartamaha ee carqaladda faraha badan ku wadeenna yacni maanta waxay maraysaa goobihii ugu dambeeyey afaroodii laga soo bixinayaa markaan dalka marka jawi wuxuu ku sugan yahay markaan ala dhihi karo inuu marxalo oo mar labaad ay soo ceshanayo yacni maqaamkiisa uu ku sugan yahay dabcan burburku hal mar guriga waa dumi karaa laakiin hal mar ma dhismi karo gurigana maxaa waay ilaahay naguma dumiya hal mar waa dumi karaa laakiin haddii waa la dhisaa la yidhaha waa maalinba in hal buloketi la saaro maalinba mitar la dhisaa marka dalka 90 ayuu burburay laakiin marka hadda waa la dhisaa la yidhi borseska dawladnimada
oo taaba galay yani maalinba waxbaa lagu darowhayaa laakiin leyl wanahaar wax ma ku dhamaayan laakiin shad wanaagsan ayaa lagu weeyey magaalada muqdisho markaan si gaar kaa warramo caasimada dalka hooyo oo qalbiga soomaaliya ah oo la aaminsan yahay xaqiiqdana ay tahay hadday iyadu degto inuu dalku intiisa kalena uu degayo hadday mar walba iyada burbursan tahay inay iyada tahay astaantii qaranka lagu qiimeynayo oo xaalad kasta ay muqdisho ku sugan tahay dalka intiisa kale lagu qiimeynayo markaan warbixinada ka siiyo iyadoo lafteedu maraaxil kala duwan ay soo martay odayaashiina waa ka warqabtiin iyo gabdhahiina berisamaadka joogeen beri muqdisho waxay ajirtay magaalooyinka uu nabdoon yani cawaasimta africa ama dunida xilli waxay soo martay muqdisho meel lama galaan ahoo khatar ahoo riski ahoo yani laysku guuliye ay tahay ama tusaale loogu soo qaato fawdada maanta waxaan dhihi karnaa muqdisho maraaxishaas oo dhan marxalad ka duwan ayay maraysaa haddii ahle dhinaca nabadgelyada dhinaca horumarinta adeegyada bulshada asaasiga u ah dhinaca bilicda iyo maqaamka magaalada maxaan ku dhihi lahaay iyo dhinaca maamulka iyo dowladnimada iyo siyaasadda intuba muqdisho waxay maraysaa marxalad yani wixii hore dhan ka duwan markaan ka bilaabo dhinaca ammaanka oo ugu muhiimsan nabadgelyada iyada ah furaha nolosha magaalada muqdisho waxaa ka jirto nabadgelyo guud iyo jawi guud oo deganaansho ay ku sugan tahay guud ahaan magaalada waxaa ka taliya dowladda soomaaliya ayaa ka talisa oo controlsha ma jirto meel kamida magaalada oo ama hogaamiye kooxeed ka taliyo ama urur argagixiso ka taliyo toona markaan saa leeyahay dhowr sano ka hor magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa inay dowladda soomaaliya o dhan 30% ay ka talinaysay 70% argagixiso ay gacanta ku hayso marka hadda waa la dhihi karaa markaan haddii magaaladii oo dhan ay gacanta iyo controlka dowladda ay ku jirto yani waa horumar laga sameeyey dhinaca ammaanka magaalada muqdisho isu socodka dadweynaha ganacsiga yani si toos ah ayuu u socdaa iyadoo wax carqaladay haayo aysan jirin oo amni darra ah ma jiro dad ku labisan dareeska ciidamada oo dadka dhibaateynaya ma jiraan halka biri laysku aadayn jira taas haddii aad tagtid suuqda waaweyn ee magaalada sida suuq bacaad iyo bakaaraha xamurweyne habeenkii 6 saac habeenimo ay furan yihiin iyadoo weliba magaalada ifayso marna maqli maysid markaan muqdisho yani dadka usoo ad ogtihi waa caasimadii dad badan oo soomaaliya oo goboladooda ku dhufteen abaaro 2011 ayaa kusoo barakacay maahan qaxooti waa barakacayaal magaaladooda yimid xilli waxaa jirta la dhahayay dhowr sano ka hor waxbaa la kufsadaa waxbaa saa la yeelaa marna dhegtaada kusoo dhici mayso miyidiina ka maqli maysid muqdisho markaad joogtid waxbaa la kufsadaa waxbaa la beelaqaysatoona waana horumar laga sameeyey xagga nabadgelyada iyo maamulka dhinacaas markaa ka fiirisid markaan muqdisho waxaa la dhihi karaa waxay ku sugan tahay ama ka jiro nabadgelyo la isku halayn karo nabadgelyadaasna waxaa qiray adduunka taageera soomaaliya oo wakiil halkaas ugu yahay ergeygaarka ayaa soomaaliya u fadhiya xogaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay sanad ka hor yani dhowr bilood ka hor mar xafiiskeena uu soo booqday arrintaas uu ka hadlay in muqdisho xilligan ay ku talaabsanayso horumar waxaana daliil cad kugu ah muqdisho inay martigelisay shirar heer gobol iyo heer caalami sanadka la soo dhaafay waxaad ogtihiin muqdisho dhowr sano ka hor ergooyinka beesha caalamka ka socda inay tagaana ku adkeed xitaa laboorka inay tagaana ku adkeed haddana xafiiskayga ku yaallo degmada Ilwaa ayay sufrada beesha caalamka oo United Nations ninka u fadhiya halkaas u horeeyo ay noogu yimaadeen uguna soo booqdaan shirarkii oo yani igaad bartamaha magaalada lagu qabtay sanadooda ku dhamaaday madaxweynayaal adduunka socdaa tagaan oo magaalada gudaheeda ku damashilayaan hadda ugu dambeyntii bishii hore shirkii yani shir caalami ah oo New Deal-ka muqdisho ka dhacay صح حلنا إلى بورك الحديث أو كدعي لكن حلنا نفترق جوا مقدش مالك بحثا معها مركان لنا عاص مركات كثير مركان مقدشو
waxaa ka jira nabad la isku halayn karo waxaa kusoo laabanayo ganacsato fara badan oo soomaali ah oo qurba joog ah ajaanibna way maal gashanaysaa laakiin marmarka qaar waxaa laga yaabaa inaad maqashaan muqdisho qaraxaa ka dhacay hoteelaa la qarxiyey ama qof yani mas-uula ama qof yani ganacsado ah ayaa lagu dil qorshaysan lagu fuliyey arrimahaas muqdisho marmar way ka dhacaan laakiin markii la barbar dhigo 2 sano 3 sano ka hor cadowgii magaalada nuskeer ka talinayay ama dadka darsan u dilayay ee dariiqyada ku gooracay madaxda soo dhigay laamiyada hadda wuxuu marayaa inuu baabuur intuu wax ku soo rakibo hoteelka xataa uu geli waayo dirbiga fog ku dhifto oo si hoteelka muraayadaha uu soo daataan dabeedna idaacadda uu ka yiraahdo alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta guulaan gaarnay hoteelaan qarxinay muraadiyaha ka jajabay waxaad dareemaysaa markaan marxaladii la soo maray iyo dhibaatada ay geysan kareen iyo siday access u heli kareen inay falal waaweyn geystaan meesha ay hadda la marsiinayo taana waxay ku dhacday dadaalka ay sameynayaan ciidamada nabadgelyada heer gobol iyo heer qaran dawladda heer gobol iyo heer qaran iyo bulshadii iyo ciidamadii oo kalsooni wada shaqeyn ay dhex martay waxa dhacay marka waxaa ka badan waxa la fashilinayo oo ciidamadana ay fashilinayaan cadow marka dhowr sano ka hor bulsho darafkayga dhaaf marka anu macalnaan ahaa jir intaanan ciidanna aan ku beerin maaragtay aanan siyaasadna aan ku beerin marka waa nacbayna warkayga markaan ii sheeg yani cadow markaan magaalada barkeed ka tali jiray dhowr sano ka hor hadduu maanta maraayo baabuur qarax ku sameeyo hotel ganacsi ah oo muwaadis baa iska leeyahay oo wuxuun ku sameysay idaacadaha loo yirahdo waxbaa dhacay halkaas nafka raadinay xilli oo hoteelada gudaha u geli jiray hadda laakiin oo darfaha derbiyada ku dhufanayo waxaad dareemi kartaa dadaal la bixiyey ilaahay fadligiisa ka sukow iyo horumar laga sameeyey xagga nabadgelyada ayuu cadowgana wuxuu marayaa meeshaas leebarkaas markaan taana insha allahu tacaala waxaan aaminsanahay dadaalka ay bixinayso dawladdeena soomaaliya iyo dadaalka ay bixinayaan ciidamadeena nabadgelyada booliiska iyo nabad sugidda bulshada oo aan wacyi gelinay oo wada shaqayn iyo iskaashi kalsooni ku yani la garab istaagtay ciidamadeena in laga gudbi doono insha allahu tacaala yani sanadaha soo socdo in muqdisho taa laftirkeeda insha allahu tacaala ay ka suusho marka taana laftirkeedu wax muqdisho ay la goonita ma ahan mushkiladda argagixisada waa problem kusoo kordhay adduunka geeska africa haba meelo u wareyso ka bilowda xitaa meel laakiin meelo aadka lagu tijaabiyey ha ka mid noqdo laakiin adduun naga ciidamo badan naga ilbaxsan ayay argagixisadu dhibaato ku haysaa annagana qayb ayaan ka nahay yani meelaan hadda adduunka qarax ka dhacaynin waa yar tahay marka haddii muqdisho qarax ka dhacay taa macnaheedu maaha muqdisho ammaan maahan waxaan rabaa ammaanka muqdisho marka la qiyaasayo in la fiiriyo dhowr sano ka hor siday ahayd maanta sida ay tahay iyo nolosha iyo isu socodka iyo ganacsiga iyo shacabka xurriyadiisa dhaqdhaqaaqa xurriyadiisa ganacsiga xurriyadiisa ra'yiga sida ay tahay laakiin qarax markii la fiiriyo argagixisada laftirkeeda magaalada si gaar u ataage taa macnaheedu maahan in magaalooyin kale ay jecel yihiin tanna ay gooni u neceb yihiin laakiin waxay ogyihin magaalada inay caasimadda tahay marka inay caasimadda wax ka geysteen inay meelaha miidiyaha laga sheego waxaasoo dhan laakiin ma dhamo yani wax yani hor istaagi karo horumarka magaalada ka socdo oo dhinac kasta leh marka waxaan dhihi karaa muqdisho xilligan qurba joog fara badanna oo magaalooyinkan ka tegay muqdisho ay tagaan yani waxa maqaayado wanaagsan ku safan xeebta liido waxa carwooyin ku safan magaalada yani bartamaheeda oo qurba joog soomaaliyeed ay haddii ilaahay ku riyo halkaas ay geysatay waad arkaysaan markaan magaalada markaan nabadgelyo isku halay karo ayaa ka jirto od imaan kartaan waxyaabaha dhacdhacayana insha allahu tacaala waa laga gudbayaa xagga markaan u weecdo horumarka magaalada dib u dhiska ka socdo maamulkeena gobolka banaadir waxaa insha allahu tacaala noo suurta gashay in magaaladaas ay ka qabsoonto waxaa la yidhahda bunya taxtiya ama adeegka bulshada asaasigu ah ilaa kaabayaasha dhaqaalaha in wax badan laga dhisay
laamiyada magaalada wax badan ayaa dhismo heleen in badan ay yani dawladda aan walaalaha turkiga ay noo dhistay iyo qeyb lagu dhiso mashruuca dalkaaga dhiso iskuulaad fara badan ayaa dib loo dayactire isbitaallo ayaa noo dhismay xarumihii maamulka gobolka banaadir min degmo ilaa waax ayaa dhismeen oo hadda waax ama degmo gobolka banaadir 17 degmo kamid ah oo yani burbursan haba yaraatee ma jirto gibigood waa la dhisay dib ayaa loo dayactiray MCA-yadii magaaladii 90% waa la dhisay dib ayaa loo howlgeliyey waxaad ogtihiin beesha caalamka Soomaaliya waa soo gurmatay gaar ahaan caasimadda Muqdisho wax badan waa lagu bixiyay laakiin waxa lagu bixiyay burburka gaaray wax isku dhigma maaha sidaas daraadeed kaalmadaasna la siiyay si aan uga faa'iideysano annaga waxaan sameynay in wixii aan ka helno yarna aan iska barakaysano laakiin annaga aan si gaar isku tashano sidaas darteed sanad ka hor waxaan soo ikhtiraaxnay mashruuc la yiraahdo dalkaaga dhiso mashruuca dalkaaga dhiso wuxuu qayb ka yahay mashaariicda lagu horumarinayo magaalada Muqdisho waxa ugu horeeyay lagu tijaabiyay wuxuu ahaa aqalka dawladda hoose Muqdisho meeshii loo aqoon jiray fiisha gobeer wadogtiin inay tahay guri taariikhi ah calanka buluuga ah ee calanka midnimada ah koodulile laga taagay 1960kii kii gumeystana laga dejiyay labada gobol isku raacday jamhuuriyadda Soomaaliya ka kawanantay guriga aqalka taariikhda leh oo wanaagsan oo ifayso dhanka kale taariikhda mugdiga leh guriga laga gumeysan jiray koonfurta Soomaaliyana ah oo xarunta Talyaaniga 1927 hal guriyo iska taagan maahan waa dhowr qaybood waa xarun dhan ee dawlad ay ahayd daakhiliyadii adeegreed Cabdullaahi Ciise ku shaqeeyay Allahu naxariisto cigaal iyo Cabdirashiid iyo Cabdirasaaq intaas oo dhanba xafiiska xilligan aan ku shaqeeyay fadhi jiran ay war wasaarayaal guriga taariikhiga ah wuxuu asagana kamid ahaa guriyihii wanaagsanaa oo magaca iyo faca ku lahay Soomaaliya iyo xusuusta laakiin la kulmay oo nasiib weyn ka helay burburka dagaalada sokay ku burburay oo shifo inuu tartilmo kala gaar xilka markaan la wareegna anaga waxaan shaqo ku bilaabay guri ku yaal Hilwaa oo kira marka maamul ku jiro guri kira maxaa magaalo kale wax ka qabtaa asiga xataa xaruntiisa ay burbursanta heedii markaa uu qeyla dhaaminay hay'ad walba waxay jira 4 sano daraasad sameeyaa daraasad ka keena fikir ka keena markayna soo baxdo waxaan inaan roo soconna mashruuca dalkaaga dhiso ayaan u dirnay injineero Soomaaliyeed inay soo qiimeeyaan gurigaas madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhagax dhigay 1 Juun 2014 20 Juun 2015 xarig uu ka jaray adduun malaayiin dollar ah oo Soomaali leedahay oo $20 oo ajnabi keenay inay ku jirnaan lagu dhisay mashruuca dalkaaga dhisa marka uu guuleystay sida ay u guuleysatay mashaariicda la dhihi jiray iska wax u qabso marka anagana mashruuca aan soo hindisnay waa la tijaabiyay oo dhismay marka 2 milyan iyo bari 2 milyan iyo $200,000 lacag badan maahan hadii loo fiiriyo adduunka xilligan hal guri oo la dayactirana wax weyn maahan hadii loo fiiriyo shaqada laga rabo dawladda hoose Muqdisho laakiin labadu waxay macno ku sameeyayaan guriga taariikhiga ah iyo guriga Soomaali ay dhisatay oo aan la arkin Soomaali waxay dhisan karto gurigaas waxaa iska kaashaday dawladda hoose Muqdisho 15% dekada ka hesho qayb ay ka bixisay shaqaalaha dawladda hoose mushaaraadkoodii 30% iska jareen iyo ganacsatada Soomaalida ee xamar ku dhaqan oo ayagana nagu taageeray haday aale kuba ganacsatada waaweyn ee shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha leh kuwa nuuriyada iyo dhagaxa xamarka soo saaro ilaa xataa kuwa ganacsiga yar yar ka haystaan gabar indhool ay noo keento 2 kiisho shamiita ay noo keento fiisha gobolka tirada lagu dayactiro mashruucaas marka dalkaaga dhiso uu guuleystay halkaas intaan ka boodina waxaan doonayaa halkaas markaa marayo sidoo kale waxaa lagu dhisay jidkii isku xirayay 1 kilomitir oo laami ah isku wadaag ilaa isku baar ubax laamigi suuqa kaaraha bartamaha ka marayay gabiis waa la dayactiray dib loo dhisay waliba si toos ah loo dhisay si laamiyada ay Turkiga ku dhiseen ayaa loo dhisay
shirkad Soomaaliyeed dhistay laakiin waxaa ka jeegarinaya injineero oo Turkiga ah lacagta ku baxday gibigeed ajnabi $20 kuma lahayn بالمناسبة دولة hoosena $20 kuma lahayn yaa bixiyay ma taqaana ganacsato Soomaaliyeed aan ku qancin inay lacagta jeebka hor ka soo saaraan annagana aan maamulno oo dhisno oo markaan ganacsato Soomaaliyeed ayaa bixisay lacagtaas oo dhan annagu gaanbisan waxayna qayb ka yahay mashruuca dalkaaga dhiso sanadkaana waxaa mashruuca dalkaaga dhiso u qorshaysan in lagu dhiso wadada weyn ee wadnaha tarabuunka ka soo bilaabay tarabuunka way noo dhisan tahay Turkiga noo dhisay walaalaha Turkiga ilaa Kaarambari meesha la yiraahdo Xawa Cabdi waxaa la Xawa Cabdi aan meesha la yiraahdo Xawa Casr maxalimiinta ka gadaal sabta waxaa la yiraahdaa Xawa Casr intaas waa 9 kilomitir waay ayaan rabnaa sanadka inaan dhisno lacagta ku baxaysa ilaa 10 milyan ay gaaraysaa 15% oo dawladda hoose xamar la siiyo 10 milyan hal sano ma looga heli karaa lacagta Soomaaliya ayaan ka rabnaa nasiibka ugu weyn na waxaan rabnaa inay ka qaataan qurba joogta ay ugu horeyso adinka aad ku nool yani Geneva baaqas markaan soo laabo doono xagga bilicda magaalada markaan ka hadalno dhammaan laamiyadii la nadiifiyay dadkiina xamartiga ayga marqaati ah magaalada Muqdisho 3 saaxiibinimo markaan marto boqolkii tilaaba hal ruux oo shaqaale ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah ayaa boqolkii tilaaba ku qoran tusaale ahaan 23 kilomitir ay walaalaha Turkiga noo dhisay 230 qofood ku qoran yani halka kilomitir waxaa ku qoran 10 qofood markaan meeqad boqolkii tilaaba waxa ku soo aadayso hal qof واحد نظافتان دسنه مواطن Soomaaliyeed oo filan ka tagay ayaa waxdaas agaasimo ka ah mutacallim ah oo professor ah oo wax bartay ayaa halkan ka tagay xamar uu tagay agaasimaha waxda nadaafada ayaan u magacaabay waaxdii aan dhisnay gaadiidaan u raadinay shaqaalaan qornay waa markaan xil ka qabtay kadib magaalada markaan imaanay anigu Turkiga habeenkii wax ka qaadi jiray meelo mucaayana qashinka intiisa kala koray bari u badbadi jiray boqol tilaabo yani hal qof oo shaqaale ah oo nadaafad mushaar ku qaadatana dawladda suuq maanan imaanin waa dukumeenti cad oo reality oo la wada ogyahay boqol tilaabkiiba waxaan u qornay hal qof marka bil munaasaba qofku uu yaqaanaa meesha uu laamay kale ma aanu intuu iska soo kaco meesha uu ka gaaro uu ka bilaabayo qof 10 qofood waxay leedahay hal kaabaas marka halkiisa kilomitir uu yaqaanaa qof walba way imaanay hadii xataa islaanta midalan ay maanta caajisto wiilkeedii soo diray ama gabadheeda laasim boqolkeeda tilaabay nadiifsanay qashinka meelo gaar ah la suu geenayaa waxa imaanaya baabuurtii dawladda hoose way qaadaya qashweena lagu soo shubayaa marka waaxda nadaafada waa dhismay xamar markaan xilligan Muqdisho nadaafadeeda waxaa nadiifsato dawladda hoose ee Muqdisho waaxdeeda nadaafada shaqaalana shaqay ka heleen anagana magaalada waa nadiifsan nagu faan maahan laakiin Muqdisho maraaxish ay soo martay waxa kamid ah xilli qashinka ma qaadi kartid hay'ada ay imaanaysa leeyahay Soomaa oo la isku diraa ay soo martay yani xilli oo yani hay'ado ay naga qaadaan NGO-yo yani ayaa soo martay laakiin hadda Muqdisho waxay maray inay magaaladeeda iyada nadiifsanayso meelahan markaan nimid hadda waxaan arkay qashinkiba Turkiga noo jeetay waan arkay in qashinka laftirkiisa meel uu aruuriyo asagii laga soo saarayo gas iyo waxyaabo kale oo intifaac kale laga sii sameeyay anaga taas ma gaarin anaga xilliga waxaan maraynaa tabarteen inaan iska qaadno oo qashweyn iska geeyno qashweyn laftirkiisa aan ka sii maarayno laakiin ugu yaraan waxaan ognahay oo hadda aan macluumaad aan helnay inay suurtagal tahay inaan wax naga maqan yihiin idina waa la gaari doonaa hadii la yiraahdo magaalada Muqdisho waa taqaanaan muddo kooban mashruucna leeynaha ku bilowday maamulkiiga horta dawladda hoose Muqdisho bisa u dhaqaaqayso annaga haysano dibdimisyasha annaga haysano yani birmata ambalaaska waxaan gaarnay gobolka Shabeellada Dhexe hadda koor sanadkan bilowgiisii inuu qarax intuu ka dhacay shidaal iska gubtay oo iska dhamaaday wax dumiila waay hal dibdimisaan ugu daaqnay
gobolka banaadir ugu deeqay dab lamaada dhacay waa la dib hal dabdamisna waa ugu deeqnay shabeellada dhexe shaqaalana waa u tababarnay dabkii labaadee hadda ka kacay dhowr bil ka hor mise bil bar ka hor maaqan waxa ambala dabdamiskiyaa dambeeyey shaqaalana way ku guulaysteen degmooyin sida cabuud waa iyo waxay dadka imaado hayaan waxaan u tababarnaa sida dabka loo damiyay xilliga muqdisho ee dadku tababarta gobolada kale ee dalka xagga gurmadka degdegana meeshaasaan ka gaarnay wax badan hadda maxaan noo dhiman dowladaha qatar iyo hadda dadaal heshiis la wadnaa inay soomaaliya gaar ahaan muqdisho ka taageeraan waxaa la yidhaha difaac almadani markaan insha allahu tacaala inaan si fiican u guulaysana rajeen laakiin waa bilow markaan yani adeegyadii khadamaadkii laga raba dowladda hoose ma dhahayo meesha la rabay gaareen laakiin bilow wanaagsan weliba rag aqoon-yahan ah oo mutacalimiin ah oo gudaha iyo dibadda wax kusoo barteen ay hogaaminayaan dakhli aruurinta markaan idin kala hadlo dakhli aruurinta canshuurihii waa bibilownay maxaan ku dhilahay ardiyaadkii oo dowladda hoose ay qaadaysa suuqdii canshuurihii maarata dakhliyaadka kala duwan soostadii labadii case control iyo blkii iyo waan bilownay kii gurihiina bishaan dhexdeedaan bilownay propertyga caadiga ahaa waxaasoo dhan oo barnaamij software ah systematic ah teknolojiyada casriga laga faa'iidaysanayo itusoo itaabsiya ah dhammaana ay hogaaminayaan rag kusoo takhasusay cilmigaas isaga laba tusaale markaa idiin soo qaato waaxda shaqada shaqaalaha oo kale aan dhisnay waxaa hogaaminaya nin master degree haysto bakistan kusoo waxbartay shaqada shaqaalaha cilmigaas soo bartay waaxda canshuuraha waxaa hogaaminaya master degree nin haysto bakistan kusoo waxbartay finance ay kasoo qalin jibiyey dhammaan yani waaxaha dowladda hoose waxaa hogaaminaya waax walba cidda takhasuskeeda leh ayaan u xushay waana maqasheeno kulle waa ka warqabtaan xilka markaan la wareegnay maamul ahaan degmooyinkii ragga hogaaminayay iyo waaxihii dowladda hoose oo dhanba inaan isbeddel ku samaynay isbeddelkaas ma ahayna dadka maha joogin aan necab nahay dadkeena ay ahaayeen meelna waxbaa soo gaarsiiyeen laakiin isbeddelka wuxuu ahaa si adduunka cusub loola hanan qaado si muqdisho u noqoto si soomaaliya isu soo laabato in la keeno dad cusub dhalinyaro ah aqoon-yahano ah maskaxdooda ay ka caafimaad qabto waxyaabaha yani firdidigta dalka soo martay ilaahay kura soomaalinimo aaminsan khalfiya ijraamiya aan lahayn taas waxay tahay waxaan ku guulaysanay inaan bulshadana iyo maamulka kalsooni ay dhex marto bulshada iyo ciidamada ay isku xirmaan dirisaynta ay meel marto ganacsatadii markay maamulkeena arkeen islaan wax u wadno inay kalsooni ay gaareen in lacag dollar intaasoo adduun ah intay nagu aaminaan ay yidhahdaan wax ku qabta taa marka ma imaan lahayn haddii aanan maamul tayo leh oo dowladnimo wanaag ku shaqeeyo aqoonteeda leh aan la keeni lahayn marka taasna waa yani dhanka yani nadaafadii iyo bilicdii nalalkii maxaan ku dhihi lahay ganacsigii magaalada muqdisho xilligan waxaa kusoo laabanaysa qurbi joog fara badan oo ka furnayso mahrada ganacsi fikrado cusub iyo teknolojiya casriya dalka kusoo celiyey marka waxaan leeyahay muqdisho marka muqdisho ay kusoo noqotay way kusoo noqodohaysaa wax yaroo dhimanna intaad adinka ugu soo laabahaysaan waayo marka waxaan leeyahay kusoo laabta magaaladiina dib u maalgashada fikirka iyo aqoonta aad ka barateen wadamadan hor u maray warshada dar hadlay soo tusan ogtahay oo qashinka nadiifiso qashinka iyo bulaacadaha wax ka imaaday waxaa la intay nadiifisay mar labaad ay ku daraysaa yani badii webi warshad mar goor maa la dhisay wuxuu 1957 markaan waa intaan xorriyadda qaadan 3 sano ka hor nin warshada qashinka maaraysa birigaas dhista marka iyo annaga markaad isku qiyaastaan muqdisho iyo meesha marka beerna iyo muqdisho haddaad isku qiyaas rabtaan qiyaasta sax ma aha صح markay xorriyadda ka hor warshada oo dhisay ku shaqeysto oo casri ah markaan yani annaga markaan dad laakiin adduunka xilligaas horumaray iyo annagoo weliba rubuc qarni dib u laabanay oo burbur oo nagu dhacay hadda ka soo kabsanayno markaa rabto inaad qiyaasto marka muqdisho iyo guud ahaan dalka horumarka uu sameynayo waxaa la rabaa sanad ka hor soo ahaa dalka 3 sano ka hor soo ahaa hadda soo yahay ammaanka sanad ka hor soo ahaa hadda soo yahay horumarka dhaqaalaha iyo dib u dhiska sanad ka hor soo ahaa hadda soo yahay
muqaaranada marka waxaa kuu soo baxaysa hore maa loo socdaa mase gadaal laakiin markaad tiraa Geneva iyo Muqdisho isbarbardhiga ina kilomitir sida la taagay kuu soo baxaysa mar kale sax ma aan marka aga sax ma jiray markaan waxaan idinka rabaa markaan inaad cilmigaan iyo waxaan aad aragteen dalkiina u baahan ku soo laabto ninka odaga saaxiibkii Xasan Cusmaan aniga safarkii ugu badan oo ahaa maxaa jiray socod le magaalo safar leeba ka bixi weynaba saa u nimid ba hotelka guurkan deg sana wareegin laakiin markaan wadada marayno dhul qurux badan cagaar doog yaa bal arkayna aniga saaxiibkay yabo ina Ahmed Diiriyam gudoomiye ku-xigeenka ma siyaasadda hore oo meeshan ayeen mar walba markaan la yaabno quruxdeena waxaan leenahay iska dhaaf armay Soomaaliya tamay armay xamar tahay dalka la moraal waa cusub jiraan asaga waxaan ku leeyahay waxaan ku gasho marka si kasta ay tahay la moraal waa cusub jiraan xamar iyo guudaan Soomaaliya dalkiini gobolada dalka oo dhan dalkiinu ku soo laabta maal gashada meeshaan wax ka soo faa'iideysta waxayna noo keenan naga u baahan dalkeena xilligan waqti lagu laaban karo ayuu marayaa ku soo laabta haddii aad maqashaan qaraxyo iyo marmar ka dhaco adduunku America hadeertaan tira aniga ayaan ugu xoog badan qaraxyo marmar ka dhaco London ay ka dhaceen Arab oo dhan mid haysato waad aragteen Pakistan oo lagu dheereysatay ka dhaco waayaan meel Sacuudiga hadda masaajid la isu qarxin waaya qaraxan wuxuu imaaday wax oo adduunkan ku soo beeray waayay markaan laakiin la moora waa cusub jilaale haddaan isugu tagno oo waliba waxa la yiraahdaa waad ogtihiin al mushkila umul hadara wixii ku dambeeyay ku horeeyana waa la yiri marka anaga hadda qarax iyo sheekada waa ka soo daadano marka xilligan ka baxayn aan ku jirna hadda Yaman iyo noo soo qaxwayso aan soo dhaweeyna meelada tijooyina markaan xilligan markaan waxaan u maleynayaa marka Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya waxay hadda marxalad marka mushkiladdu way ka sii baxaysaa insha Allah ta'ala inna ma'a al-usri yusra يعني waxaa kaloo la yiraahdaa bila shido ma buurno يعني لازم الله سبحانه وتعالى ولي يساوي متلقلين waa ka baxayna xilligan ka baxayna ku jirnaa tadaab hadda bismillaahir rahmaanir rahiim hadda ay good saarteen balaayadii iyo dagaaladii markaan xilligiisu soo noqodka waaye soo laabta dalkiinu ku soo laabta waxa yar yar oo dhacay marka ay ku soo laabtaan oo aqoontiina keentaan oo maalgashi keentaan oo kamriyaasha wadamada aad joogtaan ku qancisaan ay Soomaaliya maalgashadaan oo dhalinta Soomaaliya dhalinta xamar ay shaqeeyso hatta ay xisadu meelayso dad ay been u sheegto ilaa maxaway faqriga iyo shaqo la'aanta waxay qayb ka tahay يعني waxyaabaha kobcinaya waraabinaya argagixisada waxa kamid ah faqri iyo shaqo la'aan qofka markuu adduunyada iyo xoogaa hadda waad maqasheen xitaa wadaadadii oo sheekadan bilaabay markay dawladda ku beereenay shaqo helenay wax bartooleena waxba waxay dagaal ma banaanay leeyahay Soomaaliya laakiin markay banaanay marka waxa la ogaaday wax badan shaqo la'aan iyo faqri iyo jahwareera keenay markaan imaada dalkii maalgashada shaqo abuura يعني فكرة هنا كان واحد كستنا فكرة كميسة ضد قالها في الصومال ويجوبان لكن فكرة التكنولوجيا العصرية يصير له فائدة يسكره يوحنا كذا كرنينا الدنيا مثلا كانت هذا يمكن هذا باقي كوبادوان الحمر كسول عبتان هذا عندك كده رجال هذا باقي لبعض مشروع عدل كاغر سنة تغيب غادتان أنا جا حمران كيما هذا حمر عاصمة الصومالية مركان هذا حمر دسنتو Soomaaliya ay u dhisantay Soomaaliya hor wada dhisantay haday xogaa iyo la qabay iyo waxba dagaalada sokeeyay kadib yani anaga wada ogtiin sanadii bar dadaal waxaan ku bixinay xamar inay cambaartaas ka gudubto oo qof muwaadin Soomaaliyeed hantidiisa yani muwaadin kale gacantiisa sharci dara u gashay inay soo kusii jirin hadii ba la helo cid dukumeenti sax wadato oo u doodeyso wax badan ayaan hantidoodii gacanta ugu celinay yani duruuftaas iyana way ka baxday way ka gudubtay markaan inaad mashruuca dalkaaga dhiso oo jidka wadnaha sanadkan lagu dhisi rabo jid far badan lagu dhisi doono hadii ilaahay ku rooyahay inaad maxaan ku dheelahay ka qayb qaadataan cidii yani $10 ku bixiso cidii $20 ku bixiso cidii $100 ku bixiso sadaqa jaariye u tahay annagana waxaan keenaynaa hanaan aan nula soo xiriiri kartaan dhaqaalihiina aan ku wacdaynaa in meesha lagu talagal oo gaaro gudiyana waa soo dirsaynaa contribution aruurihayo waxaa idin ka rabnaa marka mashruuca dalkaaga dhiso inaad ka qayb qaadataan
oo aad xamar iyo guud ahaan dalkaad wax ka dhistaan gaar ahaan jidka wadnaha mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinkaa mahad celinayaa soo dhaweyntiina waxay noo tahay dhiirigelin waxaan runtii birig mataqaanaa idin ballan qaadaynaa inaan dadaalka halkeeda kasii wadi doono si ay muqdisho u noqoto muqdisho gogosha soomaaliya noqoto soomaali weyn ay iskugu soo laabato caasimadooda hooyo ay dib u dhisato waxaan jecla markaa inaan kusoo dhaweeyo safiiradda soomaaliya waddankan u fadhido faadimo insaani falyatafadal بسم الله marka ugu horeysa gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka agaasimeyaasha la socda iyo martida sharaftooda la socotoo dhan jaaliyadda dalka Switzerland Geneva kaliya maaha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib gudoomiye kusoo dhawow magaalada Geneva kusoo dhawow dalka Switzerland waa noo sharaf in gudoomiyaheena gobolka banaadir ahna duqi magaalada iyo wafdi uu hogaaminayo uu noo yimaado arka jaaliyadda arka inta kale ee shaqadiisa siduu marka ugu horeyba uu kusoo talagalay marka taa anagu waa noo sharaf waana ku faraxsanahay jaaliyadda waa markii ugu horeysa noo istaago waa ballansanayn adaan noo yimid mudnaashada adaan ku siinay marka insha allah anagu waa isku dambaynaynaa laakiin hal shay baan rabaa inaan halkaan ka qiyaasto bacdama ay caawa tahay markii ugu horeysa jaaliyadda arkay waxaan ka dareemay wadaninimo isduubnaan iyo kalgacayl dalkooda ay u qabaan inay isugu yimaadeen taa waxaa ka garan kartaa gabayadii la tiriyey heesihii la tiriyey buraanburkii la tiriyey alalaaskii calankii kor loo qaaday soo dhaweyntii wanaagsanayd oo lagu tusay waxay ahayd xamaasad jaaliyadda ka timid oo runtii muujisay wadannimada niyaddooda ku jirta iyo dadkooda waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda odayaasha ka hadlay meesha anoo ku hadlaya magaca safaaradda waxaan insha allah rajeynayaa inaanu is aragno oo wax walba oo adinku aad dantiinood ii sheegataan aniguna wixii danteena idin sheegto jaaliyadda waxa weeye baalashi aan ku duuli lahayn haddaanu safaarad nahay haddayan ayagu aysan garab taagnayn hawsheedu waa nagu adkaanaysaa marka caawa anoo weli hadalkayga rab inaan dib u dhigto gudoomiyaha hortiisa waxaan idinkaga codsanayaa inaad safaaradda garab taagnaataan dalka wadciga ka jira gudoomiyaha idin sheegay oo wax walba dhan kastaba idinkaga taabtay ilaa hoos ahaan magaaladii muqdisho anna wixii kaloo aan isleeyahay ku dar waxaan ku dari doonaa habeenka aanu is arki doono waqtiga hadda yar hal shay baan rabaasta inaan gudoomiyaha ku raaco oon idin caddeeyo anigu 8 sano ka hor ku dhawaad baan dalka kusoo noqday sidiinoo kalaan ahaa qurba joog maalintaan waddanka tagay waxaan idin caddaynayaa inay ahayd geeri iyo nolol markaan waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii berigaas markaan ka baxayo hoteelka anoo guryo ku leh oo heli kara guryaha iyaga inaan dego
baan hotel horta deganay hotelka marka aan ka baxayo baarlamaanka aan tagayana shahaadada afkaan ku hayay maanta waa ka duwan tahay waxay caddaynaysaa horumar haba yaraato haba badnaato in uun horumar la gaaray maanta shahaadadii aan afka ku hayn jirnay inkastoo ay xaq tahay shahaadadii afka uu hayo haddana adigoo iska nabad qabaad mushaaxaysaa magaalada dukaamadaad tegaysaa xamar weyne shaqadaadaad tegaysaa dadkaagaa soo siyaaranaysaa waa runtiisoo waa jirtaa marmar qaraxyo dhaca waase wax un marmar dhaca maaha wax joogta ah nabadgelyadu way sii hagaagtay noloshu way sii fiicnaatay weli kow ma joogno faanoola fare kama qodna laakiin waxaa muuqata in hiigsigaan rabnay inaan gaarno hadduu ilaahay nala qabto inaanu gaari doono insha allah waqtigaa kooban marka guddoomiye mar labaad soo dhawow wafdiga sharafta la soo dhawaada insha allah mar kale adinkoo waqti dheerna siiyey oon sii ognahay waqtiga imaanaysaan baad nagu soo noqon doontaan sidaan iyo si kasii wanaagsanna aan idinku soo dhawayna waa mahadsantihiin Yo, my heart,